Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa kulan talo wadaag ah oo ku saabsan xaaladda caafimaad dhaqaale ee bulsho ee dalka waxa uu la qaatay culimo dhaqaatiir ganacsato iyo madaxda hay'adaha dowladda ee u qaabilsan caafimaadka wacyigelinta iyo dhaqaalaha. Xaaladda coronavirus ee Soomaaliya oo ka sii daraysa. Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa laga saaray cisbitaalka kadib markii laga daaweeyay xanuunka COVID-19. Beesha caalamka ayaa war cusub ka soo saartay xaaladda dalka Soomaaliya ee ku aadan caabuqa halista ah ee coronavirus. daawade haddii uu kugu cusub yahay channelkeena Somali Online Media fadlan subscribe saar si aan kugu soo gudbino wararka ugu waaweyn Soomaalida iyo caalamka. Hagaag markaan ku soo dhawaado wararkeena. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa kulan talo wadaag ah oo ku saabsan xaaladda caafimaad dhaqaale ee bulsho ee dalka waxa uu la qaatay culimo dhaqaatiir ganacsato iyo madaxda hay'adaha dowladda ee u qaabilsan caafimaadka wacyigelinta iyo dhaqaalaha. Madaxweynaha ayaa warbixin ku saabsan saameynta cudurka safmarka uu ku leeyahay nolosha dadkeena ka dhageystay wasiirka caafimaadka Soomaaliya Marwo Fawziya Abikar Nuur, wasiirka maaliyadda Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maarey, wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Mudane Cabdullaahi Cali Xasan iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Filish, gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed, guddiga rugta ganacsatada Soomaaliyeed iyo golaha dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa madaxweynaha waxa uu u soo bandhigay walwalka ku aadan sida shacabka Soomaaliyeed aysan weli ugu baraarugsaneyn halista faafitaanka cudurkan halista ah ee COVID-19. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa kula dardaarmay mas'uuliyiinta iyo xubnaha uu la kulmay inay xoogga saaraan sidii la isugu waafajin lahaa ilaalinta badqabka caafimaad ee shacabka iyo fududeynta culeysyada nololeed iyo dhaqaale ee ka dhalanaya dadaalada xakameynta cudurkan halista ah ee COVID-19. Xaaladda coronavirus ee Soomaaliya oo ka sii daraysa. Maalin walba waxaa tiro ka badan 2 qofood laga helayaa caabuqa COVID-19 oo hadda u muuqdo inuu si degdeg ah ugu sii faafayo gudaha dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho, sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka. Qaar ka mid ah dhaqaatiirta wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegay in tiro dad ah oo qaba caabuqa COVID-19 ay aaminsan yihiin inay ku nool yihiin Muqdisho, kuwaasi oo aan imaanin wasaaradda isla markaana guryahooda ay iska joogaan. Si xawli ah ayuu ugu sii faafayaa Muqdisho, waxaana cabsi qabnaa inuu gaaro xaalad ka baxsan awoodda, ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. 2 dhakhtar oo ka howlgala isbitaalada Digfaar iyo Aadan Cadde ayaa shalay baraha bulshada ku soo daabacay in laga helay caabuqa COVID-19 ayna isku karantiileen guryahooda. Sidoo kale gebi ahaanba waxaa la xiray isbitaal Digfaar oo ahaa isbitaalka ugu weynaa ee ku yaala gobolka Banaadir. Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegtay in tirada dadka qaba caabuqa COVID-19 ay ku sii kordhayaan, isla markaana kuwa hadda qaba 2 ka mid ah ay xaaladooda aad u liidato. Qofkii labaad ee COVID-19 ugu geeriyooday magaalada Muqdisho wuxuu ahaa wasiir dowlaha cadaaladda iyo maamulka Hirshabelle. Saraakiisha caafimaadka ayaa qaba in shacab badan oo qaba cudurkan aysan la soo xiriirin wasaaradda ayna isku karantiileen guryahooda ama noloshooda caadiga iska wataan, taasina ay sababi karto in khatarta intaan ka badato. Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa laga saaray cisbitaalka kadib markii laga daaweeyay xanuunka COVID-19, balse durba shaqada kuma laaban doono sida lagu shaaciyay war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiskiisa. Boris Johnson oo 55 sano jir ah ayaa la siixiyay cisbitaalka St Thomas Hospital oo ku yaala magaalada London Axaddii 10 maalmood kadib markii laga helay COVID-19. Muddo 3 habeen ah ayuu ku jiray qaybta xaaladda degdega ah ee la geeyay dadka ay xaaladooda caafimaad aad u liidato, iyadoo laga duulay talada dhaqaatiirta. Ra'iisul Wasaaraha si dhaqso leh shaqada uguma laaban doono. Wuxuu aad ugu mahadcelinayaa shaqaalaha isbitaalka oo siiyay daryeel aad u wacan, ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiskiisa. Beesha caalamka ayaa war cusub ka soo saartay xaaladda dalka Soomaaliya ee ku aadan caabuqa halista ah ee coronavirus oo kiisas dhowr ah dalka laga helay ayna u geeriyoodeen 2 ruux oo uu ka mid ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle.
war-saxaafadeedka ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu sheegay in cudurka coronavirus uu yahay caqabad caalami ah oo adduunka dhan saameeyay ayna u baahan tahay in si wadajir ah loo wajaho. Sidoo kale beesha caalamka ayaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ugu baaqday in si degdeg ah u bilaabaan wada shaqayntii hore si loo wajaho cudurka safmarka ah ee COVID-19. beesha caalamka ayaa soo dhaweysay dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ee ugu hortagayso cudurkan iyadoo bogaadisay tallaabooyinka kala duwan ay qaaday dowladda Soomaaliya si loo xakameeyo faafitaanka cudurkan COVID-19. daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeerinaa wararkeena ugu waaweynaa Soomaalida iyo caalamka waxaana idin soo saaray halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Cabdi Casiis Madaale. inta aan warceenkan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.